muddooyinkii ugu dambeeyay ciriiriga baabuurta caasimadda deegaanku wuu isa sii tarayay mararka qaarna wadooyinka ayaaba xidhmo oo dadka lugeynaya ayayba ku adkaataa inay jidadka tallabaan hase ahaatee jid xidhankan maanta waxaa sababay fiilada loogu jiro kaalinta shidaalka ee kasoo horjeeda xafiiska maamulka dowladda hoose ee bartamaha caasimadda deegaanka ee magaalada jigjiga arrimahan oo kale marka ay dhacaan ee ay wadooyinku xidhmaan fiilo dheer loo galo kaalmaha shidaalka hay'adaha taraafikada ilaalinta wadooyinku dhibaato noocma ayay kala kulmaan arrintaas waxa nooga jawaabaya mid ka mid ah hay'adaha taraafikada oo ku sugnaa goobta cabdinuur baliyaad aniga magacayga waxaanu kala kulnaa markaas oo kale shilal waanu kala kulnaa dhibaatooyin waanu kala kulnaa marka saas daraadeed waxa weeyaan dhibkaas oo kaalmaha umbana saarayna dhibaatadana taasoo macnaha maalinba kaalin meeshii laga bixin laga qaybin lahaa shidaalka maalinba waxaa laleeyahay heblaayo ha qaadatay muxuu ahaa shidaalka ha bixiso haddii ay noog bixiso oo tootal bixiso oo tukalba bixisa dhibka intaa uu ka yaraan lahaa marka taa dhibaatooyinka waxa ugu kaalmaha weeyaan dhibaatada marar badan ayuu TV-ga srtv baahiyay shidaalyarida deegaanka soo food saartay waxa sababay bulshadana arrintaasi caqabad ayay ku tahay laamaha dawladda ay khusayso iyo kaalmaha ayayse u aaneynayaan dhibaatadan halkan shidaal baanu nimidnay ilaa iyo saaka waan taaganay kaalmuhu inay shidaal hayaan baa suuragal ah laakiin shidaalka lama shubayo marka haddee dawladda ayaa ka hadlay arrinka waana dhaylay maba helnaba shalay iyo daraad maba jirinba meel kaalin shubaysaa ma jirin kaalmuhuna way iska wada buuxaan mid aanan u buuxin ma jiro habeenkii baa la shubaayoo baabuurada somalilan tagaya loogu shubaa annaguna markaa self saa ugu jirnay makoobana la dareerin mar dhow inaan shidaal shubto saakay nimid ilaa haddana ma quraacan baashadiina kiniisadayga ka garabsatay dadkii xaagad baa lagu shubay annagana imika askar baa la yidhi askartiina way neeriday dee sidana sharci maaha dawladda cusub waxaan ka codsan lahayn kaalimioo dhan way hayaan saaka waas baan ku galaannay waas iyadoo aysan noo diiday tanna waata iminku ay jaagaraysaa sidee doontaan bay naga samaysanayaan markaa xukuumadda cusub waxaan ka codsan lahayn kaalima inay la hadlaan marka hore waxay aansiiyeen inay 17 litir ku shubaan imikana 30 real baan la doonaa ama 40 litir noogu shubaan haddana way nadiintaan imikana maanu soo quraacan saaka ilaa ka waan taaganahay xukuumadda cusub waxaan ka codsan lahayn inay naga soo gaaraan xaggan waxaan noo imanay dantana keento shidaal inaan shubano marka kaalmahan iyaga iyo shidaal ay saani dadku kuma shubayaan marka kolba meel baa lagu gudbinayaa xaggaas shubaysa lagu leeyahay xaggaas tagtana ma hayna bay leeyin marka anagu shidaal kilalkay u lahaay xagee la keenaya shidaalka dawladdu halna la ogaado annaga waxaan aragnay ziyaaro la dhaaminayaan aragnay in laga casbi ilaahay bay ku yaalaanay haddaba xafiiska ganacsiga gaadiidka iyo warshadaha waaxda ay khusayso arrintan ayaan ka wareysanay dhibaatada shidaalka ee soo noqnoqotay waa dhibaato jirta laakiin waxba keenay waxa weeye wax wadanka deegaankeena horta gooni ku ama waa dhibaato wadanka oo dhan ka jirta dhibaatadaasna maxay ahayd naaftadana maaha gaaska cadna maaha waa bensiinka kaliya waana wadanka oo dhan waxaana sababay dhibaatadaas wadanku laba meelood buu bariga hore shidaal ka soo gali jiray waa Suudaan iyo Djibouti Suudaan hadda wax shidaal oo inooga yimaada ma jiro Djibouti kaliya maxay ahayd yaa fiilo loogu wada jiraa wadanka oo dhan wadanka intaan arkay magaalo ku taal intaan arkay aan badnayn intaan arkay maxay ahayd gaadiid iyo kaalin ku taal halka Djibouti kaliya iyo shidaal hadda uga yimaada aroor walba annagu waxaan helaa inta booyadood iyo cadadka iyo gaariga sida deegaanka loo soo diray yaa numberkiisa naloo soo diray oo naloo soo email garay aroor kasta waan haynaa caqabada kale maxay ahayd taasi biirisay waxa weeye ama si korsi qaada waxa weeye shidaalka halka laga dhaaminayo waxaana loo sheegay inay caqabad ka jirto iyadana oo hal meel kaliya laga dhaaminayo kaalintu dalabka ama orderka ay samaysato 7 ama 10 cisho ay sugayso dalabka ay samaysato sababtoo wadankii oo dhan maadaama hal fiil lagu wada jiro maxay hal meel shidaalka laga wada sugay the probability-ga aad ku heli ama nasiibka aad ku helaysay aad bay u yartaa marka taas waxay keentay shidaalku inuu maxay ahayd caqabad ay timaado oo uu kala googo'o isku soo wada duub oo shidaal yaraantan soo food saartay deegaanka Soomaalida birihii ugu dambeeyay ayaa ah mid aan dalka oo dhan kala simanahay oo aan gooni ahayn deegaanka Soomaalida oo kaliya